waddani maxay kula tahay xalka Soomaaliya afari nusafadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay ikhyaartii kala maanay abwaanin dhageelle wuxuu yidhi kariimow awoodlow ka u taliya koonkee kor iyo hoos amuuraha maareeya keliyow karoonaha ayaamahan aadmiga kurbeeyiyo naga qaadkadeedko kaalmeeya eebbow naga kaafi cudurkaa irbad iyo kaniin iyo kimistari wax curiyiyo kasma waxaannu haynaba kala dhawr afkaagiyo gacmihiiyo korkaagoo kolna meel ha aadine kadinka mooye karti kale la waaye naga qaadkadeedko kaalmeeya eebbow naga kaafi cudurkaa anna intaas waxaan ku sii daraaho kariim allow karoonaahan kahanaayenaga korqaad kariim allow karoonaahan wakahaneenaga korqaad haye warniyow abdulow hoob lehees oo ka dabaleta hoob la du'ay oo ka dabaleta quraan wala agna oo ka dabaleta lu du'ay ba aamin shilay ma ka qaato laami saasa bal karay may oo tirmeeta naga tag waxa tiriba lagu yiri oowduna waa wara soo baro war gudoomiyaha gobolka banaadir Umar Finish wuxuu yiri dad aan aqaan ayaa korona Muqdisho ugu dhintay kuwa kalena waa la il daran yihiin marka dadka Soomaaliyeed waxaan uga digayaa inaan la dhayeelsan cudurkan warnamiyow maysiin warsaday gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duq magaalada war markii hore ka magacaawanay ahna wasiirka caafimaadka andalay tira badan war gudoomiyaha gobolku isaga dadka mas'uulka ah wuxuu yiri dad baan wali aaminsanayn inuu xanuunkan ka jiro magaalada asaatee sabab aan shacbigeena been ugu sheegnaa ma jirtee hal laga digtoonaado xanuunkan warnimada hadda ka hor waxa la yiri nin been lagu yaqiinay yimid oo dhahaya colaa nagu soo fool leh dadkii waxay dhaheen war waa beenta hordoo naga tag ninkii dhulka ku galgashay wuxuu yiri war colku waa nagu soo dhow yahay beenta waa kugu naqaanahay sii dhaheen wuxuu yiri war walaalayaal oo been waa sheegi jiray ma galgala jirin marka hadda ninkaas waxaan ku xasuustay nabadii nolol wax kasto dadka Muqdisho jooga u sheegto ka rumaysan maayaan laakiin waxaan kula talinayaa inay galgalato si looga rumaysto war dawladdu wax galgalasho oo u dhiman ma jirto sababtoo ah shaqaalihi ay ku sheegeen inuu cudurku ku dhacay sawirradooda ay soo bandhigeen war heesa tu koor may bahaaytay galgalashalga jamagoyse gabal dhamageed la koraaye madidadkii gohana galgalsho bilaaween maaha nabadi nolol war haddii la galgashay iyo haddii la iska dhaafaba waxaa xaqiiqaha korona inuu cudur jira yahay Soomaaliya inuu ka jiraana waa xaqiiqo marka cudurka Ilaahay baa keenee hal laga digtoonaado warnamiyow Ilaahay may baaray bani aadanka masiibus gaandiisan gashaandana ma gobadaas laakiin masiibada naftiya laamiga malan jiifada inoo la ka taxadiru dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonow dib hulaaqay naaqatee aan maqli jiray den dambentoon dib u bixiyaan ka dardaarme ka digtoonow dib hulaaqay noqotee dunida baaba'shay dalka soo galyay karoonahane ka digtoonow dib hulaaqay noqotee guriga ha ka bixin dadkana ha salaamin albaabkana xiro ka digtoonow dib hulaaqay noqotee kaasni wuxuu ahaa fanaanka wacyigelinta cudurka coronavirus cabdikuus war ma haysiine maydka ra'iisul wasaare hore nuur xasan xuseen bariyo jimcaha waa la aasayaa xabaalaha muslimiinta London aan lagu aasayaa war maydka ra'iisul wasaaraha inta la soo qaado dalka la keenay in aas qaran loo sameeyo miyaan ahayn ariyaha lagu soo qaada adduunyada ba karoonihi asaga dilaya jeebeeyo hal dayuuradoo nuuxsa karta ma jirtee oo kaale diyaaradahana ma coronavirus baa ku dhacay warwarkaan naga dhex gelinine tacsida ra'iisul wasaare nuur cadde isniinta la soo gabagabaynayaa khayr waayo haddaan afciidka bixiskiisa arbaca laga dhigin culummaduna waxay yidhaahdeen qof kastaaba meeshuu joogu uga qayb geli karaa janaasada nuur cadde haa sax waay lan walba muslim emeeli usrowas janaasatul ghaib in kudu koro war maydku waa badan yahay xudaydina ma jimcaha kale laga sugayaa dadka intaas faranjeer ma lagu haynaa war ma
cabdulaahi sida kumanaankii qofooda new york ku dhintay waxaa la yidhi ilaa hadda lama aasinoo xabaal wadareed baa loo samaynaya marka dadkaani faranjiyeerka way isaga haystaan meydadkii ha la yaabina aryaadhaha war ma haysiine nin heer muduga ayaamahan karoone ku bata asaa war yaab luhu ka soo baxay wuxuu yidhi jinnada waxaan uga soo baxnay nebi aadan iyo abootaxaawo geed laga xaaraantinimooyey cuneen haddaanna kobolishiinaas cunay miyaa adduunyadi looga tegaa cabdullow bilow aadmiga cunna jecli baan halka reebayn war kuri yaroo iyaalkun iphoneka isticmaalayan yo mayba dheegi jiray iphone 11 baro iyo weliba arigay covid-19 iyagolku wareersanya oo shiinaha weliba dooligi sidii inqaamaw yo markaas mayaska jaray shiinaha may baatinin diyaariyo hayaana covid-20 baro haliinkooba adduunyada ay ka hirnay ahaahe warwar ma haysiina hay-adda WHO maraykanka intaan karoonuu ku faafin ayay u digtay donald trumpna wuxuu yidhi warkeeda waxba kama jiraan waa fududaystay ayaan dhowaadna barasaabka new york wuxuu yidhi WHO hadalkii madaxweynuhu ka diiday maantaa la hayaa cawaaqibkiisii kadibna oda trump oo arrintaas ka xanaaqay wuxuu yidhi WHO lacagtaan sii jirnana waa ka jaraynaa waana fashilantay shiinaha iyo shuuciyaddayna la shaqaysaa fori kadibna madaxa WHO ayaa hadlay wuxuuna yidhi donald trump cudurkaani waa cudur halis ee siyaasadda ha ka daaya iyo wararka maalayacniga waa runtiis sababtoo ah hadday WHO wax qabanayso donald trump psychology ahaan uu xanuunsan yahay may daaways war WHO wadamada afrikaanka cudurka naga sheegay leeyihiin donald trump in laga sheego diidaya wariya donald trump dhaqaaliga ka baxe wadamada afrikana dhaqaaliga weydiiyo hayaan war tataros dhaganos aninos ninka la yidhaa oo WHO madaxda ka ah nin Itoobiyaan waa la yidhi qaraabo aan nahay marka Trump muxuu ka rabaa aryaa muuse saadi joogta beriga ma waxaad keenta takaros nagaros oo Itoobiyaan aan qaraabanaha beriga war muuse ma iga falaasi beriga um Itoobiya walaalaanahay meel walba ku weerasay madi ima jimaba war idinka ha ka harinay isdhaxgalka geeska afrika iyo walaalatinimada ka dhalatay war ma haysaana waxa la yidhi hogaamiyaha dimuqraadiyadda geeska afrika waa madaxweyne Afwerki hogaamiyaha isdhaxgalka geeska afrikana waa ra'iisul wasaare Abiy hogaamiyaha la macaamilka labadoodana waa madaxweyne Farmaajo la yidhi guda wariya nabadoonka geeska afrika u Farmaajo aryaadhaha war ma haysiina hogaamiyaha geed fadhiga geeska afrika waa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle orada real arrinta sheegteen looma dhama xagad Muuse biixo uga tagteen argaboosow iska aamus muuse ku ilaabaa la yiri war gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaan wuxuu yidhi caalamku haddayna aqoonsan waayeen faraha ha nagala baxeen oo hana daayeen aryaadhaha ra'iisul wasaare khayr karantiina isgaliyaa la yiri warkaasu ma runa ma sawaabeen kullay hadduu run yahay life uu soo geli lahay ilaa warkaas been ka dhig sababtaa xoogga wadaniyiinta oo dhan waa ka qaadayaan hadduu run yahay aryaadhaha agaasimihii guuda wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan alcadaala waa la karantiilaa la yiri ma ruma ma sawaabeen iyaduna war agaasimaha isbitaal banaadir fartuun shariif aabbaheedaa dhintay allah u naxariiso qaraabadana samir iyo iimaan allah ka siiyo dadka Soomaaliyeedba alla ilaahay alcadaalana samir allah ka siiyo waan uga tacsiyayhaynaa war ma haysiin madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo beerbaadii ku taala jooga wuxuu yiri odayaasha qaqaylinay afaaraha Soomaaliland faraha kala baxaan haddii kala sidii dad corona qaba amal aan qoratiilena war wasiirka beeraha Puntland wuxuu yiri 3 bilood ee soo socota cunto nagu filan waa haysanaa xuduudahan waa xiraynaa war waa la yaabe Puntland yey xuduud la leedahay adeer Soomaaliland qarnimadeeda cidda firi kartaa ma jirto xuduudaheedana way ilaashanaysaa warnimada waxaa la yidhi Ameerika markay korontada ka tagto waxay isku dayaan inay la hadlaan shirkadda korontada si ay cilada u ogaadaan Shiinuhuna markay korontada ka tagto inay samaystaan bay isku dayaan laakiin Soomaalida markay ka tagto bannaankay u soo baxaan xaafadahayna fiirfiiriyaan markaasay waxay dhahaan iska daa xaafadaha ranay ka maqan tahay war saas ma aana naga tag Shiinaha markii coronavirus ku dhaco waxay isku dayaan inay ka hortagaan Maraykanka markii coronavirus ku dhacana waxay isku dayaan faranjiyeerada meydadka ku aruurin lahaayeen inay samaystaan Soomaalida markii coronavirus ku dhacana waxay isku dayaan dhamaantiis inay inkiraan war magaaladii Wuhan corona ka bilowday Shiinaha xayiraadii waa laga qaadaa leey Wuhan chibi aha meydeen aryaadaha waxaana xaan nooga jira unkaaba xayiran war waxa la yiri kursi baanu koolkoolina kuray sidiisii xil corona lagu doonayaa waa kan oo kale gabaygaaga waa qaran dumis war yaa kala sikada war yaa diiri kala jooga wala taaban hatta bawda naga taga corona lidinku maride